aniga oo magacayga yahay Cabdo Haroon suldaanka beesha reer Dagoodiya lacagtan 1,060,000 oo ka imaaday beesha reer Dagoodiya khaas ahaan nin hadda ka hor xoolo ay soo galeen 65 qiyaas meelahaas ayuu soo dhiibay oo yiri xoolahaas in liiga bixiyo oo maxay ahayd liiga gaarsiyo culimada ayaan rabaa yiraah xoolihii ayaa culimada ay nagu wareejisay anaga hadii aan nahay beesha reer Dagoodiya waxaan u dhiibaynaa oo siinaynaa beesha reegar lacagtana cadadeeda waa 1,060,000 waaya maxaan rabnaa markaan ugaas Sultaan Yuusuf soo istaag lacagtan naga taqabbal marka waan kugu wareejinaa marka lacagtaas xisaabteeda waa 1,060,000 waaya 700 oo kun waxa la dhahay geel waaya 19 neef oo geel ama ha yaraada ama ha weynaada 300,000 360 waxa waaya waa arigi nac u ahaadaba marka total lacagta intaas ay noqotay ninka lacagtan dhiibayna waxa la yiraahdaa Sheekh Cabey Xasan Jimcaale ayaa la yiraahdaa marka lacagtaas iga taqabbal bismillaahir rahmaanir rahiim Sultaan Yuusufa akala wareege howlihii markii hore la kala qaaday oo anaga bisimankaasaan aqoonin yaadna loo dhiibay islaamka fiicana horta islaamnimada fiicana maxay ninkaan had ma xasuusanayo waxaan ninkaan xoolo ma qaadinay ninkii kala oo cidi kala loo dhiibay Soomaa ad ma santiin ma raay karnee hadii ilaahay soo toosiyo keeno waa caafinay taqabbal Allah ayna dibigooda Allah dhaafo sidan horaan buu sheegnay ninkan Shacbey Xasan Jimcaale la yiraahdo markaas caruur xoolaha ma dhicin dad xoolo soo dhaceen ayaga xoolahooda la dhacay ayaa lagu kaalmay markaas darteed ninkaas magaciisa waan sheegnay oo Shacbey Xasan Jimcaale la yiraahdo waa Dagoodiya waa Jibraa'iil waa Maxamuud Jibraa'iil waaye marka insha Allah sidaas aad ogaanaysiin khayr Allah si wala cafi talkii meeshay macnahaas xoolihii keeneen oo soo kaalmeeyeen korna Allah ka dhigay talkii kale oo xoolihii loo keenana ayina waa cafiyeen وجزاكم الله بالخير. شيخ حسن أحمد سودان حفيظك من دير علماء أنا جوجو علماء وكيل كه حدا وحان قرينا إن حوله أبكي غير أبكي دقودية كانن أو كوريجين إذا غير أبكي جرّ كوريجين حولها سنة قعنتا إن سوق شيء أو قعنتنا كوهاينو حولها سنة إن شاء الله تعالى سجار أهان إدي أو سمد هذا لجرتي أيا كوحق له علماء iyo culimadeeda si gaar ahaan ayaa iyo mas'uuliyiinteeda ayaa isla maamuli doona insha Allah taala marka waa ka qabnaa ilaa xisaabta lacagta waxay gaaraysaa 1,060,000 lacag Kenya ah lacagta waxa yiri 700,000 waxa waaye geeri waaye 360 arigi xaqiisa waaye marka sidaas ayaa marka aan ku aqbalnay aan ku qaadnay ninkan xoolaha oo hadda soo celinahay xoolahan asaga ma dhicin maxay yeelay asaga waqtigaas caruuru ahaa laakiin arinta warkii haya marka in xoolihii marka kunaya waa raali naftiisa ku noqon waysay in xoolahaas ay la jiraan oo sidaa ku dhinto ilaahay rabbigiisa kula kulmo marka sidaas xoolahan ku soo celiyay taas waxa way arin aad tusaysa iimaan iyo wanaag iyo khayr tusayso روح مسلم كاه أو مؤمن كاه إلهي رميسن رسولك رميسن آخر رميسن أي طبيعتي سنوعاس إذا لحد سنة كهر كن استقال بقول لحد مشان أرن نعدي وما أنت حاله اللي بحنا هي لسه لنا والناس وأرن هرت آديات وقيمة بدن آديات وناكسن لكن وها نصيب دراء إنه ما أنت أي جيران ضد حال إسلام دعيان حاله بعض كسوق البتي دعيان ومركا أي استعماليان ضد كاس هؤلاء خاتم حبا إنه قدام بيسو حديث لا كل إنسان الله هذا سبحانه وتعالى كعب سدان هتوبة كينان هكسون نقدان حال مسلم حلال من نغنيان سكسته هذه شيخي بلا ده هذا ربطه بس سدا سحد كورنيليا لده وحس وحجير ما حال إسلام وحال حارانا إله حارن تيلي رسول كيسا حارن تيلي إله يوم القيامة وحاران دي كيسا حارانا حولي سا حارانا مقعي شربتيس إن تكون عضاء جيفيسيد أي حارنا مركز دتك حد ولي كسعده دولنكاس كسعده أي كوئر قاتا دتك مرحلة الحدميدي دتك حولها إسلام كدعين أو حارنت عنين ما أنتوا هاي فرع حتى مجوجو هدي جوجن السرع السعرير يكون نوليين دتكاسم إذا كان تاسع إذا دم بيس أجو
caruuraad dhali haysaan in farac dhaafta ayaad rabtaan faracaad dhaafaysaa marka waxa way adigana si xun aad u dhimanaysaa waxaad dhashayna si xun ayay marka adduunka u joogayaan wanar matana tuwaltiga dhufee علمدي إسلاماتي في قبيلة وبليان كينكا دقوديتي في كجري ونولتين دفان اللي حقي أرمان دوروان أوري أرمان دور جن مدام مجنّ جهتمي وجنّكم لما كنت كوفس ربي سجلتمي شاني وكان سجلتمي جهتمي شاني رأيجني وقت إيرسون رأيجني نمي قلبي سا إيمان كين كجرو أوري سنم أوري سانتين كجري سامرة قلبي نسافر تشوفي ضد أوري كان أمانتنا وفي الرجال دبيسة أمانتنا أورين سلني كأمانتنا أرمتها وريجاني لو بليان كين كدقودي ربي خير كيننا في علوم الرجال جت أرمت وريجاني بس شلنكي كم مليان تقوتي كم جهتما مليان تقوف جهتما أرمتنا وريجاني مركز سلة مدة ديرتان أوريسون الرأيجاني ونرفني إيمانكي قصتفان دمته أوري كان الرجال دفة تنجرتو دولة دين قبضة دمته قد دفة تنجرتو لكن صدا إن آخرة وفي صداته قيامة وفي صداته سبتنت أوري كان الرجال دبسة مركا نقولنا الرأقبل ربي سبحانه وتعالى أجر كيف حسنات الراكن النافي يفرقت أجته أرنتي تان الرجال شقيه أوري كان دبسة تقالت خبا ربي ثواب أكنو في مركن نم كمولك قويا كان جيرو وقت درت وقت سيء جيراتن بيكتو نمي كمو فلا كمو كان نم كمو كانوا جخس لو كان كمو قال كان أرق فلان نجريفتو أقوان حق إسلام كبير ساجرة أجن الدنيا تنقبا جيرو إن حق سانتهين كفلا ساجرو لو كان إنه في برقوب قبو أجن في الراديبس ما نوان آخر تديباتي قيامات آخر تديباتي قابل مدة ما تنقرنا جسير رجال ونما ما تنقابته قديبس أوريسون قديبس أورين نجيبين كان مفان دمي رجع فود إنجير سلي وان قدو نماغر سيساتي عكسون قباتي بلان كانوا جخاسيد كانوا أجر تشوفها وان تلينوني أجا كراك وركن اللالتن كراكن اللالتن يعني كان مدة وان رنتا كانت ندي مجرا جنو برجع دبر رنتا كان بوء كوري ولي ديبسن جنّا كان سيراد وليدي بسنجرا مركنم كمو ورفدان كحق نم إسلام برجرت كمو أجن حق سنو في الراني ديبس أكتر ساقة إن آخرات جودان دورت مركو بلان كان لينغاز تقبدي وانو سنيننو أرانتي تن كراكنا تعلال تاني آخرتن تيتي دنسا مركز كراسونا يتلال تاني أكوبا دختانيتي إن شاء الله تعالى نم كمو كارنتن رجع شقة يبقى قيبتي رفض كمول الرجالات قلتنا في وانو يسننوني فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وح الله فدي أما شركة الله فدي وحواي سيدا أدمغليسين حفيزك علومة يا الفديا وح الله فديان وحواي وحالك اللي قدوماي حولا ضد ولا لا وهذا كهر قالت أسكال أحمري عد الرأي أبكي جرّا الرأي أبكي دجودي سيدا أدمغليسين nin walaal oo cid reer dugoodii oo geelisi geeloodi la dhacay 150 neef oo geel laga dhacay sida warka noogu sheegay oo maqleyseen ayaa oo meel eber fadhiyaan ayay cid dugoodiina intay tagtay geel garay soo dhacday iyo ari gar markay gaali gar soo dhaceen geel iyo la wada cidaan xoolaheedii la dhacay alla soo mariyay 2 neef laga sii 2 neef lagu ceeymi quiiniyaaba la qaatay 150 kun oo geelina la dhacay 2 neef qaata la dhacay idinkana ceeymo qaata marka ninkan hadda la sheegay waa hadda waqtiga iyadoo la sheegay waxa laga joogaa 56 sano laga joogaa waqtigaas hadda la sheegay waa 56 sano ka hor waay waqti laga joogo waay marka arinta ayada ahayd oo xoolihii iyada asaas maalintaas lagu kala qaaday ninkan oo dhalinyaro ilmo yar markaas iska ahay oo hadda soo weynaado maqleysaan oo Sheekh Cabay la dhahay asigoo weyn oo hadda oo maartay 60 jir iyo 70 jir asaga ay xanuunkii islaamnimadii iimaankii ayaa waxa siin way in xoolihii oo raadkoodina ay joogaan inaad iska cuno oo asigoo joogidoo ilmiis cunayaan oo cidoodi cunayso joogaan aska dhinta oo aakhirana xisaabti lagu keenay ayuu ka baqay markaas aad soo colcolaatado soo qaylisto tulkiis u yeertoos dhahay xoolihiina meeshan ku hay waa fogtahay abaarna waa la joogaa lama soo kaxayn kara waxa way oo dhaxday ku soo ba'ayaan marka hal la qiimeeyo hal la qiimeeyo qiimahooda hal laga bixiyo hal la qabto dhahay qaybta asigaas biximo qaybta kale hal la bixiyo dhahay marka arintiisa noogu sheegay sidaas ay ahayd tulkiisina way garab istaageen arintiida inay ninkaas ay ka magaan xoolihii uu qabi ay qabeen dadkoodii marka ilaahay maad iska leh ninkaas walaalkeen ilaahay tawbada iyo tawfiiqda ha waafajiyo wixii hore u cuneen oo galin Allah ka dhaafa wixii dambi oo galeen Allah ka dhaafa waxa way runtii siba si ay dhaantaa way ninkan wixii asiga awoodi ayuu iska magacaaya oo tabartiisa noqday waxa laga yaabaa dagaalka idinay dadku beenaa laga yaabaa rag isku dhamaaday adhici karto Soomaa dagaalka asiga ay geel iyo ari ilo kale lagu maqaadin dad ku leeday dadkii ilaahay markii dhiigood hadda wax iswarsana ma walaha waxa way xoolihii la iska soo celiyo hadda noolaayo
loo joodi ilaahay wixii ay soo celiyeen ha ka aqbala dadkii dambigaas kala galeen hadda ilaahay unbaaba loo wala tegi doonaa oo caadil leh ilaahay subxaana watacaala sidaas yeelaha la arki doonaaye waxaa laakiin nasiib xume ah dadka hadda xoolihii ayada ahay oo maalintaas la kala dhacay labada cidoodba wixii ay kala haystaan weli oy maaragtay dhaqaalaysan hayaan ama ay qabaan oo sidii ninkan oo kalootana aan lisdaba qabanin oon liska soo celinin aakharana ay qofku sugi arrintaas waa arrin xanuunkeeda leh waxaan ugu dhawaaqaynaa dadka dhammaan ugu baaqaynaa muslimiinta dhan meel walba joogaan labadan cidood kilixmaa labadan cidood ilaa 10 dhacday ku dhowdahay intay xoolo isu celinayaan had oona dagaalka xoolahaas laga celinaayo waa dagaalka lixtimeeyadii dhacay waay iyo kasii horo laakiin dagaaladii dhawaay hadda dhacay 2000 intaan dhaxdooda dhacay xoolaha lagu kala dhacay way ku iiday maxalaala inoo yihiin kuwaas xalaal noo maaha walaalayaal waa naga xaaraam jidka haday ku soo juraan ilaahay soo dedejiyay xoolahaas hal isdaba qabto kuwa hadda la sii wado daldalaayana hal iska daay oo hadda la sii dhicaayana hal iska daay kuwa hore loo dhacayna hal soo celi islaamnimadii iimaanka Allah nagu suga islaamnimadeena aan ilaalsanna oo nolosheena aan ilaalsanna oo aakhiradeenna aan ilaalsanna oo ilaahayna hana cafi subhanahu wa ta'ala waxa kale aan leeyahay sida la wala garanayo waxa xoolaha maartay kala dhaxmarayeen ma dugoodii garra kilix ma murli iyo garan waa dhaxmareen ayka hal marna ayko wax isu soo celina ma arkin xoolihii iday xagee ku dambeeyeen faas masadaqa ay isu noqdeen ayko isku sadaqaysteen miya mis aakhir waxa bil ismu su'aalay miya lismu weydinay miya aygana waxa ay kala qabaan dad iyo duunyo waxa ay kala qabaan aykana isu mageen intay nool yihiin dhiig islaamka iyo xoolaha islaamka iyo xaq islaamka la iska ilaaliyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala ummadan dhiigeeda Allah kala badbaadi xoolaheedana Allah kala badbaadi roob iyo barwaaqo nabadgelyo amnina Allah nasi caafimaadna Allah nasi wa billahi tawfiiq aad iyo aad ay u maadsiin cidii soo celisay xoolahaas ee culumadeedii iyo odayaalkeedii iyo akhyaarteedii ay u tageen aad iyo aad u mahad celinayna cid cafisiyo dheen xoolii waa la wareegnaa waa cafina dhaheena aad iyo aad ugu mahad celinayna ayakana hadaan xafiiska culimada wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullah